وعنا وناكسن داوديال كسو دوادا كالسمة تيفي waxaan idin soo gudbin doonaa safarka wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu ku tagay magaalada Laascaanood hadalkii uu ka jeediyay markii uu tagay garoonka diyaaradaha ee magaalada Laascaanood uu ka degay ayaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa iyo si guud qaabkii loogu soo dhaweeyay ee gobonimada iyo sharafta leh magaalada Laascaanood balse intaan gudaha galin waxaan ka codsanaynaa hadii ay tahay markii kuugu horeysay ee soo booqatay subscribe ka noo taabato muuqaalkana like aad saarto taasi waxay naga saacideysaa in dad badan uu gaaro wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre wixii muddo la sugaba waxa maanta uu si rasmi ah u gaaray magaalada Laascaanood oo caawa halkan ayuu markaasi ku hoyanaya wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa si rasmi ah u gaaray magaalada Laascaanood halkaasna waxa uga bilaabatay booqasho sida xogaan helna ay tilmaamayaan markaasi qaadanayso 2 maalmood hore waxa uga sii horeeyay oo magaalada Laascaanood gaaray maalmihii la soo dhaafay xubno kala duwan oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo isugu jiro wasiiro xildhibaano taliyaal ciidan iyo markaasi xubno kale oo markaasi Soomaalida magac ku dhaxle booqashada wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa markaasi lagu tilmaamay in ay tahay mid markaasi taariikhi ah maadaama uu yahay wasaarihii ugu horeeyay ee markaasi booqda magaalada Laascaanood sidoo kalena wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waa markiisii koobaad ee uu markaasi tago gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood tan iyo intii uu xilka markaasi la wareegay haddaba markii uu garoonka uu ka degay wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa markaasi halka ku soo dhaweeyay kumanaan dadweynaha oo shacabka SSC Khaatuma kuwaas oo markaasi loo leeyay calanka buluuga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale calanka SSC Khaatumo waxaana halkaasi si mug iyo miisaan loogu soo dhaweeyay wasaaraha iyo sidoo kale wafdigiisa Xamse Cabdi Barre waa wasaaraha Soomaaliya Laascaanood waxa uu ku tagay socdaalka nabadda iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed ayaa markaasi lagu yiri war ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya inta uu halka joogo waxa uu la kulmi doonaa madaxda SSC Khaatuma ayuu la kulmi doonaa iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood sidoo kale gordhow waxaan idin soo baahin doonaa codka wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo kalmadii uu ka jeediyay garoonka diyaaradaha ee Laascaanood markii uu halka tagay wasaaraha muddo badan ayaa la sugayay in badan ayaa la sugay oo lahaa waa imaanaya balse ugu dambeyn waa uu tagay caawana waxa uu ku hoyanayaa magaalada Laascaanood wasaaraha waxa loo soo dhaweeyay si gobonimo leh oo aad u meeqam sareyso waayo wax xaafadaha ku haray ma jiraan oo dad ah haweenkii caruurtii dhalinyaradii odayaashii waxgaradka maamulkii ciidankii saraakiisha ciidanka looma kala harin soo dhaweyntii maanta waana mid taariikhi ah wasaaraha inta uu halka joogo waxa la filayaa in uu kulamo kala duwan u la qaato maamulka SSC Khaatumo gaar ahaan hogaamiyahooda sidoo kale iyo xubnaha wasiirada golahooda baarlamaanka garaadada SSC Khaatumo inta halka uu joogo waxa la leeyahay kulamo badan ayuu halkaas ku qaadan doonaa muddada 2 cisho ee halkaas uu ku sugnaan doono sidoo kale wasaaraha marka uu tagay magaalada Laascaanood waxa uu shacabka uu ka raali galiyay muddada badan ee qorraxda ay u taagnaayeen si isaga ay u soo dhaweeyaan balan sida dhageysano kelmadda uu wasaaraha ka jeediyay marka uu tagay goobtii marka lagu soo dhaweynay xubnaha golaha wasiirada xubnaha baarlamaanka madaxda dhaqanka ururada bulshada dhalinyarada quruxda badan ee sharafta badan
dhammaantiin dadka reer Khaatumo waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan mudanayaal iyo marooyin walaalayaal ka ciidi gaaranaynaa oo aad idinka raali gelinaynaa qorraxda kulul iyo muddada dheer ee aad nasugayseen aad iyo aad baan idinka raali gelinaynaa. raalli ahaada, waxaan ku faraxsannahay inaan maanta idinla joogno, waana idinla joogi doonnaa ilaahay idankiis. wixii iswaraysiya kaftan sheeko intaba waynu isugu imaan doonnaa haddii ilaahay idhaahdo wax qabad. kulankeennan ama ziyaaradeennan booqashadeennan waxay xambaarsan tahay midnimo iyo nabad iyo walaaltinimo Soomaaliyeed. waxaan leenahay Khaatuma ha noolaato, dadkeedu ha noolaadaan. guulaysta waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa hagaag waxaad soo dhegaysateen codkii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ee ku aadanaa booqashadiisii maanta uga bilaabatay magaalada Laascaanood. haddaba dadku waxay isweydiinayaan dowladda federaalka Soomaaliya si rasmi ah ma ugu dhawaaqi doontaa gaar ahaan ra-iisul wasaaraha in SSC Khaatumo uu yahay maamul la mid ah maamulada kale oo aqoonsi rasmi ah ma la siin doonaa, maadaama weli hadda dowladduna aysan aqoonsan sidoo kalena uu yahay maamul ku meel gaara oo maamul rasmi ah weli aan loo dhisin SSC Khaatumo. dadku sidoo kale waxay isweydiinayaan booqashada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya ee Laascaanood wax ma u dhimi doontaa wada hadalladii u socday Soomaaliya iyo Somaliland, maadaama dowladda Soomaaliya tallaabadan ay u qaaday dhanka SSC Khaatumo ay tahay mid xasaasi ah oo waqti xaadirkan marka loo eego dhanka Somaliland ay xaaladda uga sii darayso. hadda ra-iisul wasaaraha SSC Khaatumo waa uu ku sugan yahay mowqifka dowladdana isaga ayaa halkaa ka caddayn doono ee kaga aadan SSC Khaatumo. balse dadka reer SSC Khaatumo waxa ay yaqiinsan yihiin ama ay aaminsan yihiin in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka heli doonaan kaalintii ay markaasi ku lahaayeen iyo sidoo kale baahida ugu weyn ee qabaan haatan ee ah in la aqoonsado oo dowladdu ay u aqoonsato state ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya. haddaba haddii aad nala soo gaartay ilaa dhammaadka muuqaalkan waxaan kaa codsanaynaa in subscribe-kan oo taabato muuqaalkanna like aad saarto, sidoo kalena qaybta faallada noogu reebta fikirkaaga sidaad u aragto ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya tagista uu ku tagay magaalada Laascaanood. mahadsanidin.